سوريا اوكي يا رب يا اميناي ايغبال ايامي وهذا سيدي قويتهي كويس waxaan ku sugnahay magaalada Kaasoo ee gobolka Haysan ee dalka Jarmalka Soomaali badan ayaa ku nool halkaas oo ay ku sameeyeen horumar dhinac walba oo taabanaya ay ka mid tahay ganacsiga waxaan joognaa dukaanka Afrax Somali Shop waxaana la joogta magacaada ku bilaabaysa maama waxa la yiraahdaa Sihaam Maxamed Cabdi waxaan ugu warantaa qaabka ganacsiga dukaankan Afrax Somali Shop iyo goortii aad bilowday ganacsiga ولا جناسي waxaan bilaabay 2015 ama dabayaaqadii aakhirkii 2014 wala ganacsiga aad buu fiicay ma sha Allah wax dhibaato kuma qabno ka waran waxyaabaha aad gadaan maxaa ugu badan dadka Soomaalida ay iibsadaan waxyaabaha waxa ugu badan dharka hooyinka cuntooyinka ay nooca waxyaabo badan baan iibinaa oo uu dhaqanadeena Soomaalida okay xagee ka keentaan alaabtaan aad iibisaan dharka meelo badan baan ka keenaa Soomaaliya xitaa qaar baan ka keenaa Dubai baan ka keenaa Sacuudigaan ka keenaa Ingiriiskaan ka keenaa meelo badan oo kala nooc ayaan ka keenaa sida waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka oo kale waxaan ka keenaa wadankeena Soomaaliya sida dhiilaha haati maxay isboodka dharkii lagu ciyaarayay waas waxaan ka wada keenay Soomaaliya goormay kugu dhalatay inaad bilowday ganacsigan waxay ugu dhalatay weligeeba niyadda ku haylay waxay ugu dhalatay sanadkii 2014 okay dukaankii ugu horeeyay dukaankii ugu horeeyay Soomaaliya la furay ma dukaankaana ama dukaan kale dukaan bay ugu horeeyay laakiin dukaankii ugu horeeyay dhar ah waxa awal internet baa jiray laakiin dukaankii ugu horeeyay dhar iyo adduunyo aniga weeyaan okay raashinka maxaa ka mid ah badanaa keentiin xagee keenta Ingiriiska iyo Soomaali Ingiriiska ka keena waxa ka mid ah fiimtadeeni iyo kale qaxweeni iyo kale timirkii baastooyinkii Talyaaniga cabitaanadeeni iyo trisiga iyo caanihii midooga hada waxa la wixii wadankeena lagu isticmaali jiray wax kasta okay badanaa Soomaalidu maxay iibsadaan dhanka cuntooyinka iyo dharka waxay iibsadaan cuntooyinka iyo dharka buu iibsadaan aad weyn aad buu iibsadaan cuntooyinka iyo dharka waxaan iibiyaa daahiyada kale guriga sharaxaadaha alaabada sharaxaadaha oo kale waxaan iibiyaa daahiyadii oo kale waxaan iibiyaa goyaashii sariirta يا روجا حتى وحنا يبنا أو عندنا كو يبنا فردية شيففكا وحيابها سكالة دلب أهان أيام كو يبسان أوكي ونقص حنرا عرفت جيفكا وكلام يبستان عرفت جيفكا أوكي أراسيدا إيه وحاسود يبنا قفكي مكا وحنصور لنا إنترنت كان قفوا كدل بنكرة كان عسل بنكرة أونلاين بانونها وكدل بنكرة نو قابلسان انترنت عثمان قني بقى قيبت انترنت نو قابلسان او هلكن فدhiya ahwiilkeegi okay ما صنتهاي وجفاي okay sidoo maanta sida imaamada ay kugu sharaxday waa sida saxda ah qofka markii uu wax soo dalbadan online loogu diraa sida ugu dhaqsiya badan maalin gudaheed ay ku gaartaa alaabta jarmalka oo dhan ma haysan jarmalka oo dhan meesha laga soo dalbado joogan way ka soo dalban karaan jarmal kamid ah jarmal oo meel walba laha Berlin baa naga soo dalbadaa meel walba naga soo dalbadaa gobolka waa u geenaysi sida ugu dhaqsiya badan alaabadaas maxaa kamid ah badanaa dalabka geyn kartaan alaabta jiifka fadhiyada roogaga
haddii ay maxay cuntooyin rabaan oo kale oo tuulada ay degan yihiin oo dukaan ku oolin oo kale cuntooyinka dharka waxay jeclaadaan boostada ugu dirnaa boostada ugu diraysan xool boostaduna 2 days ka badan ma laba maalmood ay qaadataa okay maxaa u jeedinaysaa dadka Soomaalida ee jecel dukaankaaga ee Afrax Somali shop inay wax ka iibsadaan oo online-ka gacmo furan baan kusoo dhaweynaynaa qolada online-ka iyo qolada martimaada waxaan kaloo kusoo kordhinay cargo okay waxa weeyaan waxaan qaadnaa alaabada 70 kiilo oo kale wixii wadankii u geenayay sida cargo waxyaabaha sida dharka kobaha bagaashka way qaadan karaan marka karaatontii lagu oo alaabta lagu leeyahay anaga soo diyaarinay baqaarka dambe inoogu jiraan marka taasina ayaa la moogaan insha Allah okay maxaa kaga duwantiin magaalooyin kale ee Jarmalka maadaama aad tiin Kassel dhinaca ganacsiga waxyaabo badan aan uga duwanahay sababtoo ah dukaankan aad arkaysid waa dukaamadii maaragtay inta badan Soomaalida indhaha u furay oo yani wax walba oo qofka uu u baahan yahay qutul daruuri hadii ahaaleed ama bagaash ama nooc walba ahaaleed oo ka macnaa aan ka qabtiri karno waxaa kamid ah tusaale ahaan leerarka oo kale oo baalkii guryaha fadhiyada lagu sharaxo oo kale oo sida ii sheeg maaragtay MP3 oo kale camal leh USB marka yani wax walba ay u baahan yihiin in ay ka heli karayaan macnaa Somali Afrax shop inay halkan ka heli karaan waxyaabihi markaasi ayaga ay rabaan in xitaa oo loo dalbo dalabaad waa sameyn karnaa oo markaasi aan dukaanka oo xagee nagala soo xiriirnaa mar contact ay leedin waxay nagala soo xiriiri karaan lambarka hoos ku qoran oo kale hadduu ilaahidmo ama emailka ama maaragtay Facebook intaas baa nagala soo xiriiri karaan okay waad maasantihiin sida faafaahintay mar walba ka qabadka telefoonada Cabdullaahi Qorshe Ismaan ayaa jooga okay waa maasantihiin faafaahintay ganacsiga waa dukaanka Afrax Somali shop oo ku yaala magaalada Kassel ee gobolka Niedersachsen ee gobolka Hessen ee dalka Jarmalka waa anigoo ah wariye Cabdinaasir Qujufa Somali shop ku soo dhaw barnaamijka maxaa ka iibsataa dukaankan maxaa ka heshaa dukaamada ugu wanaagsan magaalada mud Soomaali badan oo ku xirantay ganacsi badan way xiriir badan oo la leedahay marka meel laga maarmay ma aniguna waxaan baan kamid ahay dadka ku xiran dukaanka adeeg u baahan oo ka helaa dukaan adeeg dhaqan Soomaaliga ah okay ma la karaa dukaanka waa dukaanka laf dhabar ku ah Soomaaliya maadaama ay Soomaalidu ganacsiga Kassel waa ku wanaagsan mud badan ku xirantay nooc walba kale soo wixii dadku waxay kula duwayeen wixii dhaqana dukaanka Turkiga wax kula iibiyaa laakiin kane wixii dhaqan Soomaaligu iibiyaa oo loogu yimaado waa arkaa aduguna waa arkaa dukaankan marka wax walba Soomaalida u baahan yihiin oo waxa la isdhihi karaa dukaan inaan joogno Soomaaliya cuntooyinkii Soomaaliya Soomaaliga nooca ragii dumarba wax farabadan baa laga helaa adeega guryaha waxaas oo dhan baa laga helaa okay waa dukaanka ugu horeeyay marka dukaanka ugu horeeyo saasan dhigi karnaa wala fadhorka ugu horeeyay Soomaaliya dukaanka kale uu jiraa laakiin waa ugu weyn ugu horeeyay magaalada okay mas dhigi karnaa Jarmal oo dhan waa dukaanka ugu weyn dhanka walba marka la fiiriyo kamid yahay koow ama laba soo gal oo wax ka iibsanaya ku soo dhawaad barnaamijka saaxiib maxaa iibsanaysaa waxaan u imaatay waa jimcay inaan ka adeegto dukaanka marka dukaanka aad baan ugu xiranahay way badan buu qabtaa marka waxa weeye bulshaduna aad bay ugu xiran tahay waxa weeye waxaa laga disaa lacagaha Somaligram Western buu leeyahay adeegyada kaleeto oo mataqaanaa cosmetics kale ka iibsanaa marka dukaanku dukaan aad wanaagsan maanta waxa weeye inaan ka adeegto okay waxyaabaha badan aad ka iibsatay maxaa kamid ah waxaa kamid ah cunooyinka Soomaaliga sida baastada cabitaanada waxa kamid ah shoobinada oo kaleeto Moneygram ka lacagaha ka dhisanaa kamid ah marka macaamiishana aad bay isu dhaweeyeen dukaan aad wanaagsan okay aad ma santaas gobolka Hessen ugu horeeya okay maxaa ugu baaqaysaa Soomaalida macaamiisha ku ah dukaanka Soomaalida ay gaarkan degan way wada yaqaanaan ma baahna in loogu yeero way wada yaqaanaan badankoodu cidii la soo xiriirsan la soo xiriiro meel ay u sahlantahay ka helaan adeegooda waxaa barnaamijka ganacsiga idiin soo gudbinaya anigoo ah wariye Cabdinaasir Qujufa oo magaalada Kassel dalka Jarmalka waxaana kala socotaan Dulqaad Media